Assalaamu calaykum. Dunidan aan ku noolnahay waxaa soo maray cudurro badan oo safmareen ah. Koroonaha ma ahayn cudurkii ugu horreeyay ee safmareen ah kaas oo dad badan galaaftay. Bal aan maanta isla fiirino qaar ka mid ah cudurrada dunida soo maray ee safmareenka ah. Dunida hadda waxa aan ka jirno sida aan wada ognahay coronavirus. Waxa uuna saameyn xooggan ku yeeshay caafimaadka dadka ku nool daafaha caalamka oo dhan. Ma ahan hal guri, ma ahan hal degmo, ma ahan hal deegaan, ma ahan hal magaalo, balse waa dunida oo dhan. Dal walba waxa uu ka cabanayaa coronavirus. Qaar badan oo dunida dadkii ku noolaa ka mid ah ayaa la xanuunsan oo la ildaran. Qiyaasta tirada dhimatayna ilaa iyo hadda waxa ay gaartay 177,415 ruux ayaa u geeriyootay. Dabcan waa nambar aad u badan. Dunida inta uu ku dhacana waa 2 milyan iyo bar. 2 milyan iyo bar qof ayuu ku dhacay. Kaliya dalka Mareykanka waxaa ku geeriyooday ilaa iyo hadda 45,000 oo qof. Waa dalka ugu badan ee geerida. Waxaa ku geeriyooday 45,000 oo qof. Waxaana ku soo xigo wadanka waxaa ku soo xigo Talyaaniga. Talyaanigan waxaa ku geeriyootay 24,000. Dabcan farqi weyn ayaa u dhaxeeya. 24,000 ma ahan lambar yar, laakiin marka loo fiiriyo 45,000 iyo 24,000 dabcan waa lambar aad u kala sareeya. Mareykanna waxa aad moodaa in uu dhihi jiray wax waliba waxaan ugu jirnaa kaalinta koowaad. Haddana waxaad u malaysaa cudurka koroonaha in ay kaalinta koowaad u galeen ayaga oo dunida awood iyo powerful ku faani jiray wax walba in ay ahaayeen dadka kaalinta koowaad ku jira, balse lambarka ku soo xigay iyo ayaga marka maanta la isku fiiriyo waa wax aad farqi weyn u dhaxeeya qiyaastii. waana wax cajiib ah, waana wax mudan in lagu waana qaato uu yahay cudurkan yacni qadar Allah, wax alle dhinaciisa ka yimaaday. sidaas oo tahayna waxaan noogala baahan yahay dadaal. dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka uu saameeyay cudurka koroonaha, balse marka loo fiiriyo sida uu dunida kale u saameeyay waa aan kaga duwannahay. inkastoo la dhihi karo marka la fiiriyo Afrika waxaanu nahay dad xoogaa cudurkii uu saameyn ku hayo, gaar ahaan ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay 286 ruux. sidoo kalena waxaa la sheegay in ay 10 qof u bogsatay. waxaa kaloo la sheegay 16 qof in ay u dhimatay sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. warbixinta waxaad ugu noqon kartaa maapka WHO tooska ah loogu soo gudbiyo sida maalinlaha ah loogu soo gudbiyo cudurrada koroonaha ee dal waliba waxa ku soo siyaado. haddaba waxaa jiro waxa la yiraahdo pandemic disease. Pandemic disease waxa ay ka dhigan tahay waa cudurrada safmareenka ah. cudurrada safmareenka ah ee dunida soo maray waxaa ka mid ah kaduudiyaha, ama wuxuu ku jiraa kaalmaha ugu caansan. waa cudur uu sababo virus ayuu ka yimaadaa. waxa uuna ku gudbaa qaniinyada kaneecada qaniyadeeda ayuu ku gudbaa. calaamadaha ugu caansan ee cudurkan lagu gartana waxaa ka mid ah qandho kala goosida inay qofka xanuunaan, sidoo kale qofka inuu dhaqaaqii gabo. dabcan Soomaalida kaduudiyaha aad ay u taqaanaa, 2 xilli ayuu nagu soo noqday. waxaa kaloo ka mid ah cudurrada safmareenka ah daacuun. waa cudur halis ah. cilmi baarayaasha waxa ay sheegayaan in 1.3 ilaa 4 milyan oo dad ah ay sanad waliba u dhintaan cudurkan. balse daacuunka mararka qaar markii uu dilaaco uu hal deegaan ka dilaaco waxaa hal mar u dhiman kara nambar aad u badan. sidoo kale Ebola isagana waxa uu ahaa cudur safmar ah. Ebola waa cudur asalkiisii horeba ka dilaacay Afrika, wuxuuna ahaa cudur dilaa ah. dad badan ayaana Uganda ugu dhintay. waliba waxa uu dilaacay sanadkii hadda tagay bilowgiisii. dunidan waxa uu ku noqday safmareen. calaamadaha ugu caansan ee cudurkan lagu gartana waxa ka mid ahaa qandho iyo qofka oo afka iyo sanka dhiig ka keena. caabuqa ku dhaca dahaarka maskaxda ee dadkeena u yaqaanaan maskax garaad waxa uu ka mid yahay cudurrada safmareenka ah ee dunida soo maray, waxaana sababa cudurkan ama waxaa dhaliyo bakteeriya. calaamadaha ugu caansan ee cudurkan lagu gartana waxaa ka mid ah luqunta oo qofka taagmata, qandho aad u daran, madax xanuun, matag iyo isku dhaxyaac. waa calaamado cajiib ah, subxaan Allah, waana halis badan tahay. sidoo kale waxaa jira cudurka SARS. waa cudur soo booda ah oo ku dhaca neefmareenka. sanadkii ugu horreeyay ee la arko cudurkan waxa ay ahayd 2003 waxaana lagu arkay dalka Shiinaha. calaamadaha cudurkan ugu caansan ee lagu garan karo waxaa ka mid ah madax xanuun, jir xanuun, shuban, qufac qalalan iyo oofta ama kolba aariyo.
cudurkan SARS waxa uu mataan leeyahay ama uu la dhashay corona sidoo kalena waxa uu ka yimaadaa oo waxa ay isku field yihiin ama isku qoys yihiin cudurka coronavirus coronahan waa corona 19 SARS iyo coronaha virusyada sababa waa isku nooc sidaas darteed ayaa waxaa fududaatay in corona la ogaado isla markii uu yimaaday SARS maadaama hore loo sii ogaa corona markii uu dilaacay in la ogaado isla viruskan waxa uu yahay calaamadahana dabcan waa isku mid oo waxa ay ka sameeyeen madax xanuun jir xanuun shuban qufac qalalan iyo oofta ama kolba aariga qofka inay isku taagto sidoo kale waxa dunida soo maray cudurka la yiraahdo furuqa waxa uu ka mid ahaa cudurrada safmareenka ee dunida soo maray waana cudur gabi ahaanba laga ciribtiray dunida maanta calaamadaha cudurkan ugu caansan ee lagu arkay dadka waxa ay yihiin nabro jirka ka soo yaaco madax xanuun aad u daran shuban iyo dhabar xanuun halkan laguma soo koobi karo guud ahaan cudurrada safmareenka ah ee dunida soo maray waxaad ugu noqon kartaa WHO warbixinta ay ka diyaarisay ama maqaalka ay ka diyaarisay taas oo ay ku soo koobayso guud ahaan cudurrada safmareenka ah sida aan shaashada uga jeedno cudurrada safmareenka ah ee dunida soo maray waa mahadsantihiin daawashada muuqaalkan haddii aad ku cajabiyey ama aad cilmi cusub ka siyaasatay fadlan asxaabtaada u sii gudbi